السلام عليكم صاحبتي soo dhawaada kuna soo dhawaada channelkeena hadda ku cusubtahay subscribe saar videogana like saar si aan shaxayna maalin kasta aan ku dhaafin isbuucan waa isbuuc fiican weeyaan waxa soo socda Champions League oo ciyaaro fiican ku jiraan soo maanta waa Axad 23 November saad u jeedaa xagga waxaan ku soo diyaarnay 4 team iyo 5 odds soo inaad ka faa'iideysan doontaan Virginia halkan ciyaarta koowaad Real Betis iyo Girona ayaan saadaalnay inay 3 gool ka iman karto ciyaarta soo hadii aad adigu iska dhalin xagga maraso waa sax iska dhalintuna waa safe oo 3 gool hadii ay imanayaan iyadoo red card iyo xasimaadaan mooyaane laakiin 3 gool inay imanayaan waa sax ani iska dhalinayaan waa sax red card oo iyo ciyaarto isbedesho in affect garayso mooyaan laakiin 3 gool ayaa ku saxa xaggan Atletico Madrid ayaa iyaduna Getafe ay maanta u tagi doontaa waxa saadanay Atletico Madrid money line meena way badinaysaa ama win to Atletico Madrid adigu hadii aad double chance ka dhigayso waa sax inkastoo oo isku yaraanayo laakiin Atletico Madrid inay badinayso ayaan siinay halkan kale iyaduna Madrid kale ee Real Madrid ay ciyaari doonta Elche ay iyaduna booqan doonta iyaduna money line meena waxa siinay marka la eego percentage-ka ay Real Madrid ku badin doonto iyo oddska oo 1.47 xaga waxa ku soo baxay value bet macnaha waxa loo yaqaan value bet ayaa soo baxay oo ah in Real Madrid oddskeegu ka badan yahay marka la eego percentage-ka ay ku badin karto soo waxaan filayaa in ciyaarta Real Madrid isha ku hayn doontaan waa value bet xagan kale Milan derbigi baa jira 2 gool oo kaliya ayaan markaas ciyaarta ka siinay 2 gool oo kaliya ayaan ciyaarta muxuu ahaa inkastoo derbi yahay oo waxyaabo kasta laga filan karo laakiin 2 gool oo kaliya ayaan halkaas siinay soo bookmakers odds fiican bay bixinayaan oo winning bet-ka 1.31 waxaan rajaynayaa ka faa'iideysan doontaan soo koodka shaxda hadii aan siiyo waa kan koodka shaxda hal koobiyeysto 6G495 ani ahaan waxaan saaran doonaa $9,891 ayay ku jirtaa ani ahaan waxaan saaran doonaa let's say $100 si aan 500 halkaas uga la baxno